hay-adda dhowrisatada Somalilan ayaa soo agaasimtay kulan lagaga hadlayay habraaca nadaafadda wanaagsan ee warshadaha dalka. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay ururka warshadleyda Somalilan iyo bahda warshadleyda kala duwan ee dalka. Mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda dhowrisatada Somalilan oo uu hogaaminayay agaasimaha guud ee hay-adda dhowrisatada Somalilan Xamse Suldaan. ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay Cabdicasiis Farxaan, agaasimaha heertayeedka iyo shahaado bixinta ee hay-adda dhowrisatada Somalilan, waxaanu yidhi kulankan aynu maanta iskugu nimid wuxuu daaran yahay ama uu daba socdaa kulankii bishii March aynu qabsanay rabadaanta ka hor, kaasoo aynu kaga hadlaynay habraacyada wanaagsan ee wax soo saarka. kanna wuxuu daba socdaa kulankaas. kulankani wuxuu u kala bixi doonaa laba qaybood. qaybta hore ee maanta inoo bilaabmi doontaa waxay noqon doontaa habraacyada wanaagsan ee nadaafadda ama good hygiene practiceska. waxa ku xigi doona isaguna kani laba cisho socon doonaa. labada cisho ku sii xigtana waxaynu qaadan doonaa mid kale oo la yiraahdo isaguna hazab oo isaguna aan ka hortagga khataraha iyo sida khatarta loo ogaado. labaduba waxay aad ugu taxalluqaan warshadaha soo saara cuntooyinka la cuno. Xamse Suldaan, agaasimaha guud ee hay-adda dhowrisatada Somalilan oo ugu dambeyn kulanka soo xiray. kulley maanta kulankeenan waxa uu ku saabsan yahay habraacyada nadaafadda wanaagsan. ujeedadan ka leenahayna waxa weeyaan in warshadaheena iyo dadkeena waxa gaadhaya uu noqdo wax nadiif ah. runtii inaguna waxaynu soo saaraynaa uu noqdo wax nadiif ah, waayo nadaafatu min al-iimaan, nadaafadu iimaankay ka mid tahay. waan wada shaqaynaynaa insha allahu tacaala. dhowaana waxay hay-adda dhowrista tayada Somalilan ay bilowday oo ay hirgelisay laabkii cuntada iyo dawada. marka runtii waa farxad labaad oo inoo soo hoyatay. hadda ma jiri doonto wax dambe oo aynu ka shakino. laab baa jiri doona inoo baari doona. marka kulley laabkaasina inaynu usii hub urursano, ganacsatada sii wargelino, ka wada hadalna had iyo jeer dadka sii xasuusino, waa waxaan u baahanahay runtii mar walba. taasina waa taynu joogno. insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaynu aqoon fiican kala tegi doono halkan. saasaynu inoogu furan yahay kulanku.